إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد qaybta hore waxaan ku qaadan doonaa insha Allah cilmigan imika aynu u fadhino caawa oo runtii sheekuna waa aad u xayeysiiyay Allah inagu asturo ilaahay waxaan ka baryayaa wixii qalad aynu inaga badbaadiyo xaqa iyo sawaabkana uu ina waafajiyo idinkuna kolley mar haddii shayga la duubayo lana baahinayo wixii sabq lisaana ee carabku uu boobo ama af Soomaaliga khaldama ama masalada aynu khaladno ama laqabada kolley dad baan halkan culimada fadhiyo oo ibaraarujin doona intaan qalad ku fogaanin marka taana qofkii ku qanca inay masaladaas qalad tahay fartu ii taagi doona si aan u saxo insha Allah oo qaladku hadiya jeer wuxuu ku fiican yahay intuu dhow yahay ama aanu baahin ama la sixi karo waqtigaas uu ugu fiican yahay qaybta hore waxaynu xusi doonaa insha Allah cilmu tafsiir cilmigan aynu u fadhino caawa ama aynu bilaabayno insha Allah taala ee tafsiirka la yiraahdo qodobo la xiriira si uu qofku wax uga ogaado tafsiirka quraanka kariimka ah iyo culimada islaamku waxay ka yiraahdeen midda hore weeyaan taariifkiisa ama cilmigan tafsiirka tilmaanta ay culimadu ka bixiyeen waa kala duwan tahay labada tilmaamood aan isleeyahay malaha way ugu yara fudud yihiin waxa weeyaan taw horeysa Badruddin Az-Zarkashi ayaa tilmaamaya kitaabkiisa Al-Burhan fi Ulum Al-Quran marka uu tafsiirka tilmaamaya waxa uu leeyahay cilmu yufhamu bihi kitab Allah al-munazzal ala nabiyhi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ma'anihi wa istikhraj ahkamihi wa hikamihi واستمداد ذلك من علم اللغة إلى آخره وعلمي قفكم مركو برطه وفهم يا كتابك إلهي كتابك إلهي قرآن كريم كله محمد لقوا صوت الشيء عليه الصلاة والسلام بحالك وينا إنه هاي السنة وعلمي قال لقوا فهمه ومركا تفسير كتقانه واحد فهم يسا كلامك إلهي مركا تفسير كتقانه واحد كلا صباح كريس أحكام تكوتشرته يحق مضها tafsiirka markaa sheekhu wuxuu leeyahay waxyaabo ka caawinaya waxa kamida cilmiga luqada naxwadii sarfigii iyo haduu qofku wax ka yaqaan balaaqada usulul fiqiga qirooyinka asbaab nuzuulka waxyaabahaas oo dhan waa farniyo kala duwan oo aad kaaga saacidi karaya inaad kalaamka Ilaahay fahamto ama masalooyin kala soo bixi karto marka siiba dhalinyarada doonaya inay ummadda u akhriyaan ama cilmigan ay u sii faa'iideeyaan waxa muhiim ah in naxwada iyo sarfiga iyo cilmiga la yiraahdo balaaqada qaybta waliba macaaniga inta kala mustahsanaadka iyo bayaanka iyo waa laga yaabaa in qof ka maarmi karo laakiin macaaniga inuu aad u fahmo aad bay muhiim u tahay usul fiqigana wax ka yaqaano waxa kale isaguna taariifiyay Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani manahil al-irfan fi ulum al-Quran markuu taariifinayo wuxuu leeyahay waa cilmu yabxathu fihi an ahwal al-Quran min haythu dalalati ala murad Allah ta'ala biqadri taqati al-bashariyya markuu qofku tafsiirka ama cilmigan barto kalaamka Ilaahay uu fahmaya subhanahu wa ta'ala iyo wuxuu Ilaahay ula jeedo aayaadka macnahooda ibn Ashur kitaabkiisa at-tahrir wa at-tanwir markuu isaguna taariifinayo waxa uu leeyahay ismun للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع وحوي مركو قفكو التفسير كيقانو علم التفسير كوحو كهالله معناها إريادة قرآنك يو جملوين كيسا يسيدي وحلوغة فايديسان لها أما هلا صوك كوبا مركو قاركو التفسير كوالا صوك كوبا مرنا والا واسعية تفسير كقيب أيو ليه ابن عباس با رضي الله عنه كور رميو وحول وجه تعرفه العرب من كلامها قيب قرآن كم إذا وحل لقوا فهم كرا اللغة العربية قفكم مركو يا قف عربي هو اللغة العربية سوى نكسن ويقان وفهم كرا وأنا أصحاب رضوان الله عليهم
dee markuu nebigu ku akhriyo aayadaha macnahooday fahmi jireen tafsiirka kalena waxa weeye tafsiirun yaclamuhu lculamaa waa tafsiir ay garan karaan aqoon-yahanka cilmiga tafsiirka aadka u yaqaana ama culumta cilmiyada kala duwan ee tafsiirku u baahan yahay qofka yaqaana cilmiga saddexaadna waxay tafsiirun laa yaclamuhu ila allah iyo tafsiir ilaahay uu garanayo oo waa kaas dee ilaahay yihi wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah ilaahay unbaa garanaya aayadaha mutashaabiha macnahooda tafsiirku siyaabaha loo fasiraa waa saddex qaybood tafsiiru bidiraaya wa tafsiiru biriwaaya wa tafsiiru bihima tafaasiirta qaarkood waa atafsiiru bilma'huur waxaa lagu fasiraa daliilada la isku fasiraa aayadihiiba aayada lagu fasiraya aayadihiiba xadiidkii nabiga lagu fasiraya calayhi salaatu wasalaam aqwaashii asxaabta lagu fasirayaa markaa sida had iyo jeer maraajicdii hore ay u badan yihiin weeye ibnu kathiir iyo dabari iyo kutubtaasay u badan yihiin ma'huurka daliilkiibay daliilo kale ku fasiraan tafsiirka labaadna waxa weeye atafsiiru biriwaaya bidiraaya qofku luqada carabiga inuu ku fasiro qur-aanka kariimka ah oo ereygani macnaha uu bixinayo xagga luqa alcarabiya marka la eego iyo jumladani macnaha ay bixinayso iyo sida aayaduhu ay tanaasubka u leeyihin ama isugu xidhan yihiin luqa alcarabiya qofkii aada u yaqaanaa sida uu u fasirayo tafsiirka ayaa iyadana diraaya la idhaha waa xagga aqoonta iyo tafsiir markaa labadaba la saarayo diraayadiina lagu fasirayo riwaayadiina la raacinayo sida markaa shawkani oo kale kitaabkiisa uu markaa la yidhaahdo fatxu lqadiir aljaamicu bayna fanay riwaayati wadiraaya kitaabkiisa fatxulqadiirka la yidhahdo riwaayada iyo diraayada labadaba u israaciya saddexdaa qaybood ayuu noqdaa tafsiirku tafsiirku qaybihiisa waxaa ka mid ah tafsiir taxliili wa tafsiir ijmaali wa tafsiir muqaarin wa tafsiir mowduuci tafsiir ijmaaliya macnaha waxa weeyaan marka uu sheekhu sharxaya mufasirka ahi waa siday kutubta u qaybsan tahay kutubu tafsiir macnaha ijmaaligaabuu ku xisaabtamaya aayaadkaasuu qabanaya si guud buu sharxayaa tafsiirka labaadna waxa weeye tafsiir taxliiliyo waa erey buu u qabanaya marka ereygaasi macnaha uu bixiyo jumladaasi macnaha ay bixiso wuu isdul taagayaa haddii ay tahay luqadda iyo hadday tahay balaaqadeeda iyo haddii ay tahay inta macnay noqoto kelmadaha si kale haddaynu dhigno waa laqbadii iyo sharaxii oo kale innagu had iyo jeer waxaynu saarnaa marka hore waynu laqbaynaa tarkiibkaynu isa saarnaa si qofku u fahmo erey walba macnihiisa tafsiirkaasi waa taxliiliga haddana macno guud baynu ka hadalnaa oo marka laqbada aynu dhammayno si guud baa loo sharxaa si qofku u fahmo macno alijmaali weeye mid waxaa jira la yidhaha atafsiir almuqaarin oo isagoo macnaha ijmaaliga ah sheekhu ka warramaya ayaa wuxuu soo bandhigayaa intii aayaddan ku soo aroortay tartiibkii qur-aanka isagoo ilaalinaya aayaduhu say u kala horeeyaan aayaadka kale alla macnaha ah sidoo kale wuxuu soo aroorinaya axaadiidta aahaartii horena waynu usoo yar ishaarno waa tafsiirkii ahaa ma'huurka ayaa dhinacana muqaarin ka noqonaya daliiladiibuu kusoo wada aroorinaya halka tafsiirka mowduuciga ahi waxa weeyaan sheekhu maalan wuxuu soo qaadanayaa mowduuc caqiidadoo kale salaadoo kale soomkaoo kale ma eegaya aayaduhu say isugu xigxigaan laakiin wuxuu eegayaa maalan mowduuca uu ka warramayo inta aayadooda kusoo arooray salaadoo kale haddaynu kasoo qaadano salaadii buu soo dhigayaa markaa inta aayadooda kusoo aroortay ayuu soo bandhigayaa iyo axaadiidta kusoo arooray marka mowduucu u jeedaaye laakiin uma jeedo inuu aayaduhu say isugu xigaan uu ku xisaabtamo waa qaybaha culimmadu maraajicdooda aad ku arki doonto ee ay waxu fasiraan qofka mufasirka ee qur-aanka fasiraya waa mowduuc kale isnee aynu u gudbayno oo cilmu tafsiir la xidhiidha wuxuu leeyahay shuruudo ayuu leeyahay dhammaanteenna waxaynu u socnaa ama had iyo jeer dadka aqoon-yahankee da-yartu waxay u socdaan inay dee kalaamka ilahay intay fasiraan dadka gaadhsiiyaan oo xikmaddu dee dhegaysi iyo ifaade iyo istifaada labadaba way isugu jirtaa inuu qofku wax faa'iidaysto dadkiina usii gudbiyo oo u faa'iideeyo markaa shuruudaha waxaa ka mida qofka doonaya inuu tafsiirka barto ummadda sii gaadhsiiyo sixatu lictiqaad in ictiqaadkiisu wanaagsan yahay way dhacdaa ama way jirtaa macruuf weeye
dad badan oo ictiqaadkoodu wanaagsaneen in quraanka fasiraan oo xataa de gaaladaba qayb mufasiriina manka loo yaqaan mustashriqiinta ee diinta kristanka faafiya qaar baa tafsiirka iyo luqada iyo culumta kala duwan sharxa marka qofka had iyo jeer tafsiirka laga qaadanayo wax laga faa'iideysanaya waan aqeedadiisu wanaagsantahay oo qofkaas munxarif aan ahayn gaal la ahayn waxa shuruuda kamida tajarrudu an ilhawa qofka rabitaankiisu inaanu hagaynin xaq u hagayo wa kalaamki ilaahay marka qofku rabitaankiisa waa inaanu u qaloocinin oo ujeedooyin kale waa inaanu u duwin sidii saxda ahayd ee culimadii hore salafku ay u fasireen asxaabtu ay u fasireen luqada carabiga waafaqsan waa inuu fasiraa aadaabta waxa kamid ah mashruudaha an yabda awalan bitafsir alquran bilquran inuu quraanka isku fasiro sida wadi jeer sameeyay ibn kathir rahimahullah aayadihi buu isku fasiraya wa khayru ma fusira bilwari wax lagu fasirana waxa ugu fiican waxiga soo arooray oo quraanka alquran yusaddiqu ba'dahu ba'da quraanku isma beeninayo iskama hor imanayo wuu say fasiraya waxa kamida shuruudaha ama aadaabta inuu qofku sunnada nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam iyo ahadiithta nabi maxamed ka soo aroortay in quraankii lagu fasiro ahadiithta saxiixa ama xasanka ama mutawaatirka sugan xadiidka sugan xagga sanadahan in aayadii lagu fasiro وإلهي بأوحد وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه وأنك سودت إن القرآن كي أديك ضدك أفسره وحل الدنيا ضدك إن أفسرته آدابت وحكم إذا أما أن الله نهدي ووايو قفك مفسر كهين تهرى إن صاشقنا أقواشي أصحاب أيون نقنا حيث إنهم حضروا الرسول وعاصروا التنزيل وحي لتشوق النبي محمد هي لفرديان القرآن كي يقين كسود دقي وحي أي جرام ويانا وحبي كويدين ترى النبي عليه الصلاة والسلام كهذه يشر عدة قرآن كتفسير كيس لقى قادنا يو وإياه قوي فهم كوفي عنا إياه قالها واقع القرآن كهذا لا يسد وهذا يو أصحابنا رضوان الله عليهم قيل لقوا يقاني تفسير كأيه الهايان وعنك وهاسد ابن مسعود يا عبد الله بن عباس يرك لبا waxyaabaha lagu fasirayo waxa kamida ama qofka mufassirka shuruudiisa waxa kamida al-ilmu bil-lughati al-arabiyyah wa furu'iha tahoro inuu soo sheego qofku inuu yaqaan luqada carabiga oo aanu luqada carabiga ka been sheegayna ama si qalad u fasiraynin luqada carabiga waa la yaqaana marka loo noqdo maraajicdeeda marka la eego usuusheeda kelmadu macnay tusisaa waxa kamida al-ilmu bi usul علوم المتصلة بالقرآن إنه قفك وحكي يقانا علوم تلحد القرآن كهرين صوت المال وحكم إذا دقة الفهم التي تمكن المفسر من ترجيح معنى على آخر إنه قفك القرآن كفسر هي قفة فهم له فهم ذا الله ينقره ونعض لما أنتين الله يبين كبرينا فهم ذا سين الله ويدي سنين سبحانه وتعالى وضدكنا وكلا فهم بديهين مركي اللي يدعي علي بن أبي طالب ما jirtaa hadaa aalu beydkii nabiga tihiin wax uu nabigu idin ku gooniyo alayhi salaatu wasalaam oo sir ah ama xog ah oo aan asxaabta kale siinin maya xaashida yar waxa ku qoran way jiraan waa wax iska caana xaashidana ku qornaa iyo faham ilaahay uu siiyo qofka de kalaamka ilaahay uu ka fahmo haday dhacdo anagoo aalu beydka kamidi kalaamka ilaahay inaan wax ka fahmno oo faham dheeraad ilaahay uu noo siiyo oo wax ka sheegno taasite waa arin hiba ilaahay weey لكن وحنا النبي نو قاري لما تشربوا لها علي بن أبي طالب رضي الله عنه كقفك تدكوي كلا دوينهين قفنا وقف بليدة وفهمدي سو أذكت هاي أما أن هروح فهمين أما فطنا هاي قفنا وقف مستحفرا وسيدا ده علوم تنكلا مادقة أما الله برتبع تدكوي كلا مستحفرينهين مركا قفكو هذه يشارين ومركو مفسر نقنايو فهم كيس وناكسين يهوي آدابتا تسشرودي بهان آدابتا وحكم إذا إن قفكن استجا نيدي سوى وناكسنتها وحكم إذا أخلاق دي سوى وناكسنتها وحكم إذا إن وكل رقم يوحي إلهي ومركو قفك التفسير كيف فسره ده هذه وحدة كلها لا استجا وجه الرأي سادرات ده وين إن كل رقم يوحي إلهي تحري الصدق والضبط والنقل قفك وين ورنت هذه يشارك الدلالة حق وين ولا جهره تواضع وين وجاده وعزة النفس عن سفاسف الأمور
naftiisu waa inay ka santaagto oo uu iskala weyn yahay qofkii arrimaha liita qofkii hadduu qof mufasiraya ama tafsiirkiiba baranayo waanu had iyo jeer yahay qof tusaale ah oo dhacdhaca iyo waxyaabaha sharaftiisa wuxu dhimaya iyo culimanimadiisa iyo waanu ka durkaa karaamada aynu ilaalinaa ilan dadkii baynu doonaynaa inaynu kalaamkii ilaahay nafteenna ku saxno ugu horeyn dadka kalena gaadhsiino waxaa kale oo lagama maarmaan alanaah falaa yasrudu lkalaama sardan bal yufasiruhu aw yubaayinu marka tafsiirka uu qofku fasirayana waa inuu si degan qofku fasiraa dadweynaha isfahmaan dadka macaamiishiisa ama waxuu gaadhsiinayo waa inuu ku talagalaa in cid waliba ay fahmi karto xasba istiaacati inta awooddiisa ah waxaa la yidhaahdaa qofku had iyo jeer fasiixa ama baliiqa ahi waa qofka gaadh kari kara ama awoodi kara waxa laabtiisa ku jira inuu dadka soo gaadhsiiyo haddii qofku aftahan uu yahay wey hadduu agnaan yahayna wuxuu odhanayaa waxaan waan garanayaa laakiin waxaanan awoodi karaynin inaan kuu sheego way dhacdaa warniga waxaa waan fahmi karaya hebelow laakiin sidii aan kuugu sheegi lahaaba igu adag markaa qofkii bal inuu maaragtay xaawilo ilaahay baa bixiya laakiin haddana inuu isaga laftiisu ku dadaalo inta awooddiisa ah sidii uu dadka ugu cadcadayn lahaa uu isaga soo qaadi lahaa qofka aan waxba garanaynin halkiisa waa inuu isdhigaa dhegaystayaasha waxaad iska soo qaadaysaa inaad adigu halkaa fadhido oo aad tahay qof aan waxba garanayn af carabigana garanaynin culumtan kala gaargaarka aana garanaynin kaasaad la hadlaysa dadkii waa dad isku jira waa qof aqoon leh qof iska jaahila qof dhexdhexaada qof luqadii carabiga garanaya mid aan garanaynin qofki waa inuu ku xisaabtamaa inuu intaba wax wada gaadhsiin karo taana ilaahay baynu ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu inoo dhib yareeyo waanaynu isku dayi doonaa bal inaynu dixiin iska dhigno waxay yidhaahdaan qolo waliba waxay ku odhanaysaa soomaalida afka aad ku hadlaysa waa mid buurbuuran dad badan baan fahmaynin marka adiguna waxaabaad isleedahay waadixiyo aada u iftiimiyo af soomaali asala ku hadal marka way jiraan lahjadihii baa kala duwan soomaalidu ay ku hadlaysay waxaa jiro oo kale dad da-yarahoo casrigan jooga oo luqadda waxyaabo badan oo hore aan garanaynin oo luqadooda ay tahay luqad khafiifa markaa cid walba in lagu xisaabtama aad bay muhiim u tahay waxay inagu badan runtii oo aan la dafiri karaynin dadka wadaadada ah inay aada u isticmaalaan af carabiga oo markaad aada u dhegaysato qofka boqolkiiba 20 ama 30 ayaa erayo carabiga ku badan marka qofkii wuu ka dhacayaa mar kasta ood soo gudbiso eray carabiya oo aan u fahmin macnihiisa laba soomaaliya marka aad u sheegto mid carabiya kaga dhex darmo wuu ka yaro dhacayaa sidaa daraaddeed iyaduna taasina ku xisaabtan bay leedahay intaa waxaa sii raaca in qofku uu wax ka barto fikrad iyo aragtina uu ka haysto culimada mufasiriinta ah iyo tafaasiirtooda taasina way inoogu jirta inaynu sheegno laakiin waktiga ayaa qaybtan hore ina soo celiyaya tafaasiirtu waa noocyo qaarkood baa maraajicda ka mida laakiin ay ku badan yihiin qisooyinka israa'iliyaadka ah iyo riwaayooyinka aan takhriijsanayn ama aan la shaandhaynin ayaa ku badan marka wuxuu qofkii u baahan yahay hadduu kutubtaa wax ka faa'iidaysanayo inuu kitaab mukharajahoo la shaandheeyey riwaayooyinkiisii axaadiidta iyo aahaarta ama hadalladii asxaabta inuu qaato kolleyba kutubtaad iibsanaysaa waxay kaaga baahan yihiin inaad culimada aqoonta u leh wax ka faa'iidaysato oo kala tashato kuwaad iibsan lahayd ee kula mustawa ah ama adiga kula heera oo aanad mid walba iska qaadan shiicadu kutub bay leeyihin ahlu sunnuhu kutub bay leeyihiin marka haddaad kuwii shiicada iska soo xambaaratana dee wax badan baad iyadana kala kulmaysa taladana waynu bixin lahayn hadda haddaan isdhaahdaa halkan ka akhri kutubta ka hadlaysa cilmu tafsiir kuwii hore iyo kuwa dambeba iyo culuum qur'aan waqti dheer bay naga qaadanayaan laakiin arrintaas baa baraarujin lahaa waay siiqooyinka isticaadada siyaabaha loogu dhawaaqi karayo waxaa ka mid ah acuudu billaahi min ashayطaani الrajiim waxaa kaloo lagu dhawaaqi karaa acuudu billaahi الsamiici اlcaliimi min الshayطaani الrajiim in wasfigaas samiicigaa lagu daro isticaadada ama acuudu billaahi min الshayطaani الrajiim
meesha la akhriyayaa waxa weeye cinda albad'i bilqur'aan qur'aanka kariimka ah marka aada bilaabayso intaanad bilaabin haddii aada salaada ku jirto iyo haddii aanad ku jirinba intaanad bilaabin ayaad acuudu billaahi akhriyaysa daliilkeeduna dee sunnada saxiixa iyo qur'aankaba waa ku sugan yaho xagga qur'aanka ilaahay wuxuu uhi faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashayطaani اrajiim markaad qur'aanka akhrido culimada badankooda waxay ku fasireen markaad doonto inaad akhrido markaad doonayso inaad akhrido qur'aanka ayaad bilaabaysa acuudu billaahi min ashayطaani اrajiim sad qur-aankii bilaabaysa xamsu ahaa baan filayaa oo quraada sabcadaa ka mida isagu sidan daahirka ayaddaab u qaatay oo wuxuu leeyahy markaad qirada dhammaysaba isticaadada la kaalay xagga dambey maraysa laakiin sida raajici waa sidaa hore nebiguna calayhi salaatu wasalaam sidaasuu odhan jiray sida axaadiidta saxiixa ku sugan wuxuu horreysiin jiray isticaadada marka naska ayaa naska fasiraya isticaadada marka la eego xukunkeeda waa mustaxab waajib maaha laakiin waa sunne markaa qofku dembi kumuu dhicin hadduu ka tago laakiin sunnuu ka tegay in sunnaha laga tagaana dee wax sahlan maaha sideedaba marka lagu dhahdo shaygaasi waa sunne inaad iska fudaysato dee ka tagta maaha ee sunnuhu waa la ilaalinaya waana waxaynu ajriga ka doonayn adilada ama daliilada ina farayana sunnay ku fasireen culimadu salaada ama aan idhaahna ee kor baa loo qaadaa isticaadada ama waa lala jahraa ilaa fi salaa salaada dhexdeeda mooyaane qofku markuu acuudu billaahi min ashayطaan odhanayo waa inuu kor u akhriyaa laakiin marka salaada dhexdeeda sida hadyiga nebigu yahay calayhi salaatu wasalaam waa in hoos loo akhriyaa oo qofku inuu cilmiga salaada yaqaano iyo in kale fuqahadu waxay odhan jireen waxaa lagu garanayaa isticaadada haddaad aragta nin tukanayo isticaadada kor u qaaday waxaad garatay inaanu aqoon u lahayn fiqiga salaada bisinkana waynu gaari doonaa insha allah haddii ay dhacdo inaad qiradii joojiso wadakhala fiiha kalaamu ajnabiy oo hadal kale uu soo dhex galo oo aan qur'aankii ahayn dib baad isticaadadii usoo celinaysa adigoo qur-aankii akhriyayo qof kaa joojiyey waad la hadashay ama telefoon baa kugu soo dhacay markaasaad ka jawaabtay dib baad isticaadadii u akhriyaysa isticaadada haddii aynu ama acuudu billaahi min ashayطaan الrajiim intaa ku dhaafno waxaynu u gudbi lahayn bisinka bisinka culimmadu waxay isku waafaqsan yihiin inay tahay aayad ka mid ah suuraة الnml inahu min sulaymaana wainahu bismi illaahi الraxmaani الraxiim inay aayad ka mida suuraddaa tahay oo aayaddaas aynu akhrina waa la isla waafaqsan yahay waxaa kale isla waafaqsan yihin culimadu suuradda la yidhaahdo suuratu tawba inaanay bisin lahayn iyadana way isla waafaqsan yihin baaraa bisin la yidhaahdaan soomaalidu qofka lagu dhaarinaya la doontaano waxay yidhahdaan suuraddaa qofka lagu dhaariyaa haankaa go-aya ama horay buu ka dhimanaya suuratu tawba inaanay bisin u horeynina waa la isla waafaqay sababtana halkeedaynu ku gaari insha allah waxay isku khilaafeen labadaa wixii aan ahayn saddex qowlna way isugu khilaafeen qolo waxay leeyihiin aayad qur-aanka ka mida ma aha ama aayad faatixada ka mida suuraddu bisinku ma aha bismi illaahi الraxmaani الraxiim oo labadaa meelood wixii aan ahayna suuradaha faatixadana kama mid aha suuraddana kama mid aha maxaa haddaa loo keenay waa litabaruk barakaysi unbaa loo keenay bay leeyihin sidaasina waxaa daliishanaya waxay yidhaahdaa ama qowlkaa qaba maalikiyada oo xadiidkii ahaa salaadii baan qaybiyey qasamtu salaata baynii wa bayna cabdi ayay daliishadaanoo bisinkaan lagu soo darin qowlka labaad wuxuu leeyahay waa aayad ka mid ah faatixada iyo suurad walba marka lagama tegi karo korna waa loo qaadayaa waa madhabta shaaficiyada
ويقولنا حديث بيدليشنا يعني كي أم سلمة إيا أبي هريرة يو كمدها قولك الصدحاتنا وحوي قولك أرانيا وآية مستقلة نزلت للفصل بين السورتين وآية قونية وسيدي هذا يستقتاقن وحنا الله كان هلكن لبدا السورة ضاد أيا لغو كلا ساريا ومركا بسنك الآخرية معناه هذا وحوي سورة دي هرانا وي لماتي تو كلانا وي صوص عطا لبدا السورة ضاد كلا ساري دولة أيوم بي افتيمينيس وهو قول الجمهور بيلين وانا سيدا اي بدينهين علماء فصل قاسي بدين دليل كان وحويان حديث كي ابن عباس الصحيحها الشيغي ولها ابن عباس نبي وحو غران جيري ان سوردا هore dhamaatay suurad kalena soo socoto marka bisinku bilaabo markuu malagii quraanka u akhriyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam mar haduu bisin bilaabo wuxuu ku qanci jiray nabigu in suuradii hore dhamaato suurad kale bilaabantay marka hadiya jeer la tukanayo salaada ee quraankii la akhriyayo bisinkii ma lagu bilaabaya suuratul faatiha mise waaba laga tegaya culimada islaamku waxay u badan yihiin inaan bisinka laga tegaynin laakiin la akhriyayo daliilkuna sidaas uu rajaxaya qolada markaa la bisinkii kollayba waa in la akhriyo faatixada lagu akhriyo laba qolay u sii qaybsameen kor baa loo qaadaya iyo hoos baa loo dhigaya marka jumhuurtu waxay leeyihiin hoos baa loo akhriyaya adilada saxiixiina taasi u badan yihiin madhab shaafiiciya iyaga laftigooda xadiid saxiixa bay daliishanayaan halkeeda aad ugu tagi doontaa marka aad baadho iyaguna waxay leeyihiin kor baa loo qaadaya intaasina waa inta aynu ka odhanayno bisinka sidaa daraaddeed in lagu dagaalamo ama lagu murmo ama la isku bidceeyo bisinkii baa kor loo qaadayo hoos baa loo dhigay ma aha qofku waa inuu cilmi ahaan u kororsadaayo maraajicda iyo aqwaasha culimada iyo daliilada ay soo kala daliishanayaan ugu dib ugu noqdo intaa waxaynu ka horreysiin lahayn ama aynu kusii xigsiin lahayn aan idhaahdo suuratul faatixa iyo akhrinteeda suuratul faatixa in la akhriyo oo salaada lagu akhriyo weliba ragcad walba ma aha sunno ee waa farad sidaasaa culimada islaamku ay u badan yihiin xadiidka saxiixaana way daliishanayaan ee nebi moxamed uu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati lkitaab salaadi uma jirto oo umay ansixin qofka aan akhriyin faatixada abu xaniifa ayaa waxa uu leeyahay qur-aanka kale inagu filane haddii qofku faatixada akhriyana waa sax hadduu halkaa qur-aan kale ku akhriyo salaadana way ku filan tahay faqra'uu maa tayasara min alqur'aan ayuu daliishanaya aayadda ilaahay subxaana wa tacaala laakiin aayadda waxaa fasiraya xadiidka si aynu horeba usoo sheegnay aayadaha waxaa lala akhriyaya oo fasiri doona xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam marka inta aynu kaga soo gudubno saddexda arrimood ama aan idhaahna ee bisinka iyo isticaadada waxaynu usii gudbi lahayn suuratu lfaatixa suuraddan la yidhaahdo iyo fadligeeda suuratu lfaatixa fadaa'il dhowra bay leedahay oo culimada islaamku ay isla waafaqsan yihiin axaadiidta nebiguna ay sheegtay calayhi salaatu wasalaam fadligeeda waxaa ka mid a in horta ay tahay suuradda keliya ee salaadda u dhimanayso sidaa xadiidka nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam mar haddii la yidhi salaadi ma ansaxayso faatixada la-aanteed intaa qur-aanka way la dheertay suuratu lfaatixa axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam fadli bay u sheegeen nebigana ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a xadiidkii caddaynaya sheegayey in asxaabtu ridwaan ullaahi calayhim iyaga oo safar ah ama socdaal ah ay la kulmeen meel degan ama reer bay usoo hoydeen kadibna qoladii may sooriyeynin nin baa laga qaniinay waxay u yimaadeen qoladii ninka laga qaniinay asxaabtii baa u yimaadeenoo waxay dhahaan cid idinka midoo ninka noo daweysaa ma jirtaa asxaabta ka mida baa wuxuu yidhi haa anigaa daweynayo dawadiisa haya kalsooni uu ku qabo waxyiga ilaahay daraaddeed markii ku akhriyay faatixada
وكوي حولها سوسي وكي نبي كوهم بلي عليه الصلاة والسلام حولي مركا وما يدريك أنها رقية محاكو وقيسين الدوتها مركا سورة شافية لينا عيدة إذا وحكم إذا إن يتي سورة مقعد الله يقانا الشافية إلهي بوح عافماتين لكن عافمات أياء والسبب وقاء لغاية ابن القيم رحمه الله وآذو شرحه سورة وحاول ليه شافية في أمراض القلوب والأبدان شركة إيا قلبي قبا إلهي واكو عافماتين حواليها أصحابته أي سوقاتين النبي قال الله قيب سدي عليه الصلاة والسلام مركا لا أصحابي قبي بن كعب اللورني النبي عليه الصلاة والسلام إيادنا واتي وسيوي دي النبي عليه الصلاة والسلام ولها أعظم الصورة ويديني وحسدوا كلا حديث كبخاري عن أبي سعيد ابن المعلى النبي يقول أصحابي كويلي حديث البخاري بكسوغيه لو علمنك سورة هي أعظم الصور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد وعن كبار الدونا سورة وين قرآن سورة ديس وهي أعظم الصور في القرآن قرآن كسورة ديس وين تراها ويبدن تايماها لكن وحا لو فهم إياه إن يتهاي سورة أفضل بدن حق فضلها نبي عليه الصلاة والسلام وحو الدونا يقول inuu baxo marka waxaan xusuusiyay ballanqaadki oo waxaan ku yiri sawtiyaadii ballanqaaday tiri suuradaasaan ku baraya uu ka jawaabay rasuulku wuxuu yiri alxamdulillaahi rabbil aalamiin hiya sab'ul mathani wal qur'aanul aziim alladhi utiitu suurada suuratul faatiha la yiraahdo weeye suurada quraanka suuradiisa oo dhan u weyni waana todobada soo noqnoqday ilaahay quraanka uu ku sheegay ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وحن كسينا إلى إلهي ولد تدبدا واوين تدبدا صانق نقضان إلهه تدبدا صانق نقضا هي قرآن كي وينا الكيدي بقى قرآن كي ويناية أما قرآن كي وين بيت تدبدا نكمدي مركبات تدبدا آيات صانق نقضايا وحن مركز هل كائن كاركينا فضلك الصورة دني إنه آدي بدني هاي حكم إذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام كسبنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث القدس قال النبي إلهي كوريني إلهي بحول الصلاة دي وان قيبي وأنا جي أدون كأنه قيب سنت صلاة أمر كفاتحة على لغة شيء أدون كيبو وحول ليه هاي وحي ويديسته وحكوا أمانين إلهي بك قدامي سبحانه وتعالى marka adoonki wadaada alxamdulilaahi rabbil aalamiin inta markuu akhriyo ilaahay wuxuu leeyahay hamadani abdi adoonkaygi wuu mahadiyay markuu wadaada arrahmaan arrahiim qala athna alayya abdi adoonkaygi wuu amaanay ayuu ilaahay oranaya ilaahayna ma hadii amaanta aad buu jeceli markuu wadaada maliki yawmiddin inta kolka adoonki akhriyana ilaahay wuxuu leeyahay majadani abdi أدونكaygu wuu sharfay sharaf buu siiyay mararka qaar koodna waxay riwaayada ku jiray fawada ilayya abdi arrinkiisii way bandhiga markuu raada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in inta markaynu akhrinana bal ilaahay sidoo inoola hadlaya inaynu isdhageysano inuu ilaahay u soo jeesano way inta markaynu akhrino ilaahay wuxuu leeyahay hada bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'al intani anigi adoonkaynu dhaxaysa إياك نعبد إلهي بعلا إياك نستعين إله أديكان قرقارية كالمكاد دونينا تاسنا أدون كيبا عطس سوق الدماء إلهي بوحكا عطسنا سبحانه وتعالى مركا أدون كيبو عطس قاوان كأقبليا مركو أدون كيبا هذا إهدينا الصراط المستقيم إلى الرمات كاللقا قارو إلهي وحورنا يا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل إنت موحى إسكالا أدون كأول بعدي سير ربي بريقيس adoonkaygu wixii uu i weydiistay waan siinayaa oo leeyahay ayaa ilaahay oranaya subhanahu wa ta'ala marka halka waxaad ka aragtay intan aynu faatixada akhriyayno ilaahay baynu la faqaynaa subhanahu wa ta'ala oo aynu toos ula hadlaynaa oo aanay haboonayn inaad sii jeesato ama aad noqoto maqane jooga in jirkaaguna joogo maskaxdaada iyo qalbigaaguna ay maqan yihiin ceebit
sidaa daraaddeed bay habboon tahay inaad khushuucsan tahay oo ilaahaaga ogsoon tahay inuu ilaahay ku hor taagan yahay oo aad isaga la hadlayso iyaaka adiga wey adigana waad leedahay waanaad maqan tahay isma qabato marka adaabta salaada ayay ka mid tahay waajibka ah khushuucda qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun khushuucduna waxa weeye inaad ogtahay inaad ilaahay saa ula faqayso aada ula hadlayso subxaanahu wa tacaala marka suuratu lfaatixa daliiladaas iyo axaadiidtaas saxiixa baa ku soo arooray fadligeeda waxaanay leedahay magacyo dhowra waxaa ka mid a umulqur'aan qur-aanka hooyadii iyo umulkitaab labadaba waa la yidhaahdaa sida kitaabka hooye ugu tahay waxa weeye qur-aanka kariimkii waxa uu si guud uga hadlo ama faahfaahiyo shaygu faahfaahinaya iyaduna soo koobaysa matala qur-aanku wuxuu ka hadlaa qaybi caqiidaday ka hadashaa way ka hadlaysaa si kooban qaybi waxaa ka hadlaysaa taariikhdii ummadaha iyo wararkooda si kooban bay u ishaari doonta qaybi sharci dejintay ka hadlaysaa iyaduna way ka hadli doontaa suuradda markaynu mustafaadaadka marayna ayaynu baraarujin doonaa insha allah marka qur-aanku qaybihii uu ka hadlayay si kooban u tilmaamaysaa ee farta ugu fiiqaysa waxaa la yidhaha alxamdu oo dee waa tan alxamdu u horeyso waxaa la yidhaahdaa alfaatixa suuratu lfaatixa ilaahay baa kitaabkiisii ku aftaxay ama ku bilaabay saa daraaddeed baa faatixa loogu magacaabay asabcu lmathaani alqur'aan alcadiim oo iyadana xadiidkii aynu soo akhriyeyna ku jiray magacyadeeda kuwaasa ka mida qaala allahu tacaala bismi illaahi اraxmaani الraxiim alxamdu lilaah mahad ilaahay baa leh rabbi اlcaalamiin caalamiinta oo dhan isagu rabbiga u ahaaye iska lahaa alraxmaani naxariistiisu caamka ahayde cid waloo adduunyadan joogtaba gaadhsiiyey alraxiimi naxariistiisu gaarka ahayd ee naxariistiisa ilaahay ku gooni yeelayay maalinta qiyaamaha iyo aakhiro awliyadiisa iyo dadka isaga rumeeyey maaliki yowmi ddiin maalinta qiyaamaha waa ilaaha isagu iska leh wax walba iska leh iyaaka nacbudu ilaahayow keligaa baanu ku caabudaynaa wa iyaaka nastaciinu keligaa baanu gargaarkaa doonaynaa ihdina asiraad ihdinaa ilaahayow nagu hagaaji oo nagu hanuuniyo nagu toosi asiraada waddadii ama jidhkii almustaqiima ee toosnaa siraada aladiina ilaahayow kuwii jidkooda nagu hagaaji oo nagu hanuuni ancamta calayhim aada u barwaaqaysay ee khayrka iyo baraadhaha iyo barwaaqada aada siisay oo markaa dee mu'miniintiya hayri اlmaqduubi calayhim kuwii loo cadhoodayna aan ahayn waladaaliina kuwii hallaabayna aan ahayn suuradda macnaheedu marka la soo koobo waa sidaas weeye waxay ku bilaabantay suuraddu mahadda ilaahay subxaanaه wa tacaala alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin waxay ka mid tahay shanta suuradood ee qur-aanka kariimka ah ku bilaabma ereyga alxamdu lilah suuraddan imika aynu marayno suuraة اlfaatixa suuraة اlancaam suuraة saba suuraةu faatir iyo waxaan dhaafay suuraة اlkahf shantaas suuradood xamdigu ashaa ku jirta alxamd waxay leeyihin culimadu waa lilistiqraaq waxa weeyaan waxay sheegaysaa ama u taagan tahay macnaha ay sheegayso ereyga kullu oo kale kullu alxamdu lilaah ilaahayow mahad oo dhan adigaa leh mahad hore iyo mid dambe iyo mid addoommaha adiga ay ku mahadiyaan iyo ta dhexdooda ay ismahadiyaan waxoo dhan adaa leh garanaybaa ilaahay si toosa marka loo mahadiye dadku hadday ismahadiyaanna sidee buu ilaahay mahaddooda ku yeelanaya dee wuxuu ku yeelanayaa qofka la mahadiyey ee wanaagga laga sheegtay yaa wanaajiyey ilaahay baa wanaajiyey marka ilaahay baa ku ammaana subxaana wa tacaala markaa waxaa la yidhaahdaa lilistiqraaq hadihi lafda daalat cala alistiqraaq xamdigaa isaga ahi waa xamdi kaamilka ah min jamiici اlwujuuh dhinacyadoo dhan mahadun buu ilaahay leeyahy hadduu deeq ku siiyana mahad buu leeyahy
hadduu dhib kugu ridana mahad ayuu ku leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaa fasirayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam hadigiisii markuu ilaahay ka helo subxaana wa tacaala wax wanaaga wuxuu odhan jiray alxamdu lilah alladii binicmatihi tatimu saalixaat ilaahay baa mahad ilaahay wax walba nicmadiisa ay ku dhammaystirmayeen markay dhibi rasuulka soo gaadhana wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi calaa kulli xaal ilaahay baa mahad walba mahad isagaa iskale xaalad walba waxaan jecelahayba yuu soo gaadhine oo dhibbaha igu dhacee mahad buu leeyahy alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi waxay sheegaysaa uluuhiyada ilaahay inuu isagu yahay ka cibaado iyo mahad iyo xamdi yeesha rabbi alcaalamiinna waxay sheegaysaa rubuubiyada ilaahay inuu yahay rabbiga isagu cid walba u abuuray idan halkaa waxaa ka muuqanaya naftiisa ilaahay wuxuu ku sifeeyey uluuhiya qabla rububiya taasina waatay u taagnaayeen rusushoo dhan oo waxaa in badan dadku ay diidanaayeen cibaadada ilaahay markaasaa rususha lagu soo diri jiray dadka inay ogoleysiiyaan cibaadada in badanoo ka midii rabbinimada ilaahay waabay ogolaayeen marka muhiimadda ay sii leedahay cibaadada alla in lagu khaas yeela ilaahay u horreysiiyey saa aynu arkayno rabb اlcaalamiin caalamiintoo dhan buu rabbi u yahay ereyga rabbi macnaha uu sheegayaa waxa weeye wuu abuuray waanu leeyahay waanu maamulaa waanu arsaaqaa intaa cid noqon kartaa ma jirta ilaahay mooyaane subxaana wa tacaala caalamiintu waxa weeye ciddii isaga ka soo hadhay oo dhan fircoon markuu nebi muuse ku yidhi rabbulcaalamiinku muxuu ahaa ayaa wuxuu ihi rabu الsamaawaati wاlardi wamaa baynahuma ilaaha abuuray weeye cirka iyo dhulka iyo inta ka dhaxaysaba ee iska leh marka caalamiintoo dhan caalamka sare iyo caalamka hoose iyo meel walba ilaahay baa abuuray isagu iska leh subxaana wa tacaala waa cumuumu rububiyaة اllaahi tacaala lijamiici اlcaalam marka la eego suuraddu towxiidka saddexdiisa qayboodba way tilmaamaysaa rububiyadii ilaahay inuu yahay isagu rabbiga caalamka way sheegtay rabbulcaalamiin uluuhiyadii ilaahay iyo inuu ilaahay cibaado xaq u yeeshay bay tilmaamaysaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin alasmaa wasifaat towxiid alasmaa wasifaat inuu ilaahay leeyahay sifooyin waa wanaagsan iyo magacyo waa wanaagsan bay sheegaysaa alraxmaan الraxiim maaliki yowm اddiin waxaa kusii xiga markaas alraxmaan الraxiim labadaa wasfi ama labadaa tilmaamood ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala oo halkaa horun bay sii fasirayaanay raacayaanoo rabb اlcaalamiin markii ilaahay uu soo xusay baa qofku wuxuu isweydiinaya talow rabbinimadaas ma waxa weeyaan rubuubiye intiqaam iyo ciqaab iyo cadaab iyo dhib uu ku jiro maya jawaabtu waxa weeyaan waa rububiya naxariis wadata alraxmaan الraxiim ilaahay naxariistiisaa ballaadhan oo badan subxaana wa tacaala nawcu hadi rububiya rabbinimadaa ilaahay nooca ay tahay ayaa rabbi uu ku jawaabay alraxmaan الraxiim macnihii hore way leedahay oo gaal iyo islaam ba ilaahay nicmadiisa wuu siiyaa adduunyada oo adiga arkaya ay isugu naxariisanayaan naxariistiisa daraaddeed isagaana fasiray nebigu calayhi salaatu wasalaam oo waxa uhi ilaahay wuxuu leeyahay naxariistiisa boqol buu qaybiyey 99 jannaday ku dambeeyaan hal mid buu adduunkan keenay khalqigoo dhammina taasuu isugu naxariisanaya bal waxaa naxariista dunyadan taala ee xataa xayawaanka ee wax cuna ee sabca la yidhaahda wax ugaadhsada oo ilmihiisa yar ugu naxariisto naxariista taasaa ka mid eh bal naxariista intaa la eg baa ayaa mid ka midaba adduunka la keenay maxaad u malayn 99 aad u weyn weyn naxariista ilaahay qof guul darro badan baana naxariista ilaahay ka qada ilaahayna addoomaha wuxuu doonayaa inuu naxariisto oo uu badbaadiyo walaa yahliku cala allahi ilaa haalik mid isagu naxariista ilaahay iska diida mooyaan الرحمن الرحيم رحيمنا markaa waxa weeye nicmadii aakhiro
dee awliyadiisu siinaya ee dadka ashahaatay isaga rumeeya adduunka iimaan kaga tegay siduu aayadda ku cadeeyay wa kaana bilmu'miniina raxiima mu'miniintu buu naxariisanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala culimada qayb ka midii waxay ku fasiraan alraxmaan almunacim bijalaa'il nicam waa ilaaha bixiyo nicmooyinka waaweyn waraxiim almunacimu bidaqaa'iqi nicam waa ilaaha bixiyo nicmooyinka qarsoon ee yaryar markaa nicmada waaweyn iyo tayar maxay kala tahay nicmooyinka qaarkood dadka waa u muuqdaan inaad xoolo yeelato inaad dad yeelato inaad caafimaad leedahay waxaasoo dhan waxyaabo dadka u muuqdo wey nicmooyinka yaryarina waxa weeye nicmada uu qofku garto markuu waayo waxaa jira nicmooyin badan oo inta hore aanad fahamsanaynba inay nicmo tahayba laakiin markaad weydo un baad oranayso taasina waxaana miyaan haystay mabaan ogeynbe waanay badan yihin nicmooyinkaas iyaaka nacbud maaliki yowm اddiin maaliki yowm اddiin ilaahay baa maalinka qiyaamaha maaligahoo isagu iska leh oo miyaanu adduunyadayna lahayn mee wax alle waxa adduunka yaallana dad iyo dunyo iyo caalamka o dhan isaga iska leh maxaa haddaa maaliki yowm اddiin maalinka qiyaamaha ilaahay ugu gooni yeelay lahaanshaha culimadu waxay leeyihiin waxa hadhaya sheegashooyinkii adduunyadan ka jiray adduunkan dad badan oo waxuun iska sheegtaa jira waa xoolahaygii waa daarahaygii waa waddankaygii lahaanshihii noocaas ahaa ee dadku ay sheegan jireen wax ayaa iska hadhay maalinta qiyaamahana ilaahay taa uu sii caddaynayaao wax alla wixii waxuun sheegi jire lahaa anaa leh su-aal baa la weydiinaya liman ilmulku lyowm maanta yaa wax leh jawaabta maxay noqotay lilaahi alwaaxid alqahaar ilaahay baa keligii wax iska leh marka cid kaleba jawaabi weydo ilaahay baa isu jawaabaya cid kaloo wax leeba ma jirtaba maalinta mid waloo melik iyo maalik iyo sheegan jirayba halkaasuu ku hadhay oo iska aamusa labada qiraba way jiraan maliki yowmiddiini iyo maalik labadaba waa jiraan marka waxaa jira melik aan maalik ahayn iyo maalik aan melik ahayn labadaba ilaahay wuu yahay subxaana wa tacaala melikna wuu yahay maalikna wuu yahay melik baa jira boqora oon waxba lahayn inkasta iskaba yar tahayba oo kii wax yeeshaaba had iyo jeer wuxuun xuurtaysto oo hadduu melik ba yahay inta badan laakiin wuu jiri karaa melik aan maalik ahayn oon waxba lahayn waxaase loo badan yahay in dadku ay yihiin dad maalikiinoo wax leh laakiin aan melik ahayn oon boqornimo lahayn labadaba ilaahay uu leeyahy subxaana wa tacaala isagaa boqorna oo waxna leh waxay aayaddu muujinaysaa ihbaatu sifati اlbachi waاljazaa in aakhiro jirto oo iman doonto inkastoo in badan iska dhega tireen dadkan adduunyada ku nool abaalmarino dambayso mudan in la xusuusto loo diyaar garoobo oo siday qeybkii hore iyo ummadaha hore uga warrantay aakhirana way ka warramaysa adduunka waxa joogana way ka warramaysa xaqu ilaahay leeyna way ka warramaysa suuraddu marka waxaa mudan in loo camal falo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waxay tilmaamayaan labadaa jumle isdaba yaalla in addoonkii ilaahay keligii uu caabudayo keligiina gargaar uu weydiisanayo cid gargaar la weydiisto ama la caabudana waxa u mudan sifooyinkaa wanaagsan ilaah leh subxaana wa tacaala ilaah wax walba iska leh ayaa cibaado xaq u yeeshay isagaana gar u leh in dee marti loo noqdo oo wax alla wixii uu addoonku codsanayaba isaga u qadimo waxaa markaa aayaddu ay caddaysay labadan arrimoodba inay yihiin laba arrimood oo ilaahay ku gooniya cibaadada iyo isticaanada alcibaada xaqu lilaahi tacaala waxaana laga fahmayaa taa shayga loo yaqaano xasriga ama qasriga taqdiimu lmacmuuli cala alcaamil waxyaabaha luqadii aynu sheegayna kuu faa'idaynayso wey luqada carabiga hadday tahay naxwada iyo balaaqada iyo waa mawaadiicday ka warramaan had iyo jeer shayga la idhaahdo alqasru waalxasru alidaafi waاlnisbi qaybihiisii kala duwanaa marka maadaam ereygii dambayn lahaayoo iyaaka labada meeloodba xagga hore maray macnaha laga fahmayaa waxa weeye keligaa baanu ku caabudayna keligaana gargaar baanu ku weydiisanayna sidaasaanay tahayoo dee intaasoo daliil baa inoo sheegaya cibaado inuu ilaahay keligii leeyahy oo wax xuquuqda cid waliba xaq bay leedahay ilaahay xaq keligii u leeyahay in ilaahay keligii la caabudo sida xadiidkii mucaad ku sugnaa tadri maa xaqu llaahi cala alcibaad
xaq ilaahay addoomaha uu ku leeyahay mataqaanaa waa inay keligii caabudaan isticaanadiina waa saasoo kale ilaahay keligii baa gargaar la weydiisanaya haddii aad markaas taa hore garanayo dee cibaadada haddii laakiin qofku uu idhaahdo meelaha qaarkood sawtay ku soo aroortay in cid kale isticaano la weydiisan karo ee ilaahay baa uhi watacaawanuu cala albiri waataqwa samafalka iyo isu kaashada alla kacabsiga isticaanadaasi maxay noqonaysa isticaanada laba qaybood isticaanatu tafwiid wa isticaanatu lmushaaraka isticaanatu tafwiid macnaheedu waxa weeyaan wax aan cid kale qaban karin oo ilaahay uu qaban kara keligii subxaana wa tacaala oo aan addoomuhu kuu qaban karin taa ilaahay keligii baa la weydiistaa isticaanatu atafwiidna waa la yidhaha ilaahay baa keligii loo bandhigayaa waa waxa addoomaha kale lagala quustay qaban kari waayaan yaa ku badbaadin karaa yaa dhal ku siin karaa yaa ku jannayn karaa yaa dembiga dhaafi karaa intaaba ilaahay subxaana wa tacaala cid kale ma leh marka isticaanada waxaa la yidhaahdaa isticaanatu tafwiid isticaanatu lmushaaraka baa jirto oo waa waxa ay addoomaha kale kuu qaban karaan xoogaa lacaga bay ku siin karaan dee cadowa markaa ay saysaan bay kaa dhicin karaan waxyaaba badan oo dee addoomuhu ay kaa caawin karaan baa jira marka taana mushaaraka la yidhaha marka ta la ogol yahay ee sharcigu ogol yahay waa taa mushaarakada ee cid kale kuu qaban karto taan cid kale kuu qaban karayninna waa ilaahay subxaana wa tacaala ta keligii uu leeyahy sidaa darteed maalan addoon dhintay oo kale waxba kuuma qaban karo oo dee shaqadiiba way ka dhammaatay isagii aba cadilana duca u baahan marka inaad barida ma aha addoon maqan oo aan kulaba joogin waxaanu kuu qaban karan inaad weydiisato maaha laakiin addoomaha ku hor jooga kula joogaa wixii ay kuu qaban karaan isticaano waad weydiisan kartaa waa ka ilahay uhi watacaawanu goorma addoomaha laftigoodu waxa ay kuu qaban karaan goormaa la weydiisan karaa waxa la weydiisan karayaa cinda alxaaja marka aada had iyo jeer baahato markaad baahataabaa sharcigu kuu fasaxayaa cid kale inaad codsi u qorato oo aada wax weydiisato haddii kale iska dah bukaan badan baryo badan baahi badan waa la isku nacaa soomaha yay ku nicin oon lagu nicine ilaahayna wuxuu kugu jeclaadaa inaad codsi u gudbiso aada isaga wax weydiisato addoomuhuna waxay kugu nacaan inaad iyaga wax weydiisato wallaahu yaqdabu in tarakta su'aalahu wa banuu aadama xiina yus'alu yaqdabu ilaahay wuu kuu cadhoodaa haddaad waxba weydiisan weydo oo ducaysan weydo ood baryi weydo addoomuhuna way kuu cadhoodaan haddaad wax weydiisato bal raxmaanka iyo khalqiga ilaahay iyo khalqiga farqiga u dhaxeeya say u kala duwayne waxaa kaloo culimmadu ay leeyihiin waxaad cid wax weydiisan kartaa cinda suruuri bih markuu qofku ku faraxsan yahay oo xaaladaha qaarkood buu qofku danaynayaa inaad wax ama cilmi weydiisato ama cuud iyo xoolo weydiisato oo isaga taasi ay ka farxinaysaa u jecel yahay taasoo kalena waa la weydiisan karaa dhib kuma jiro lifaaqaana culimmadu had iyo jeer waa sii fasireen ihdina siraad almustaqiim waxyaabahaynu ilaahay isticaano ka weydiisanaya isticaanadii baa socota ilaahay ou jidka toosan nagu hanuuni yaa kugu hanuunin kara jidka toosan ilaahay mooyaane ilaahay baa ayaa kugu hanuuninaya marka isticaanadii bay daba taallaayo ilaahay ou jidka toosan nagu hanuuni waxyaabahanu gargaarkaa isticaanada kaaga doonaynay gargaarka ayuu ka mid tahay inaad hanuunna siiso hanuunkana ilaahay baa bixiya subxaana wa tacaala intaynaan halkaa hore soo dhaafin aayaddaa hore culimmadu waxay leeyihiin iminka nacbudu wanastaciin way kala horeeyaan nacbudu baa horeysa nastaciinuna way dambaysa waana ka xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam aynu ku soo marayna xadiid alqudsigii in intaa horena ilaahay uhi aniga ale inta dambena addoonka ale nacbudu waa cibaadadii ilaahay baa leh intan dambena nastaciinuna addoonkii baa leh oo ilahay wax weydiisanaya marka waxaa laga sirta laga fahmaya latiifada ku jirta waxa weeye markaad ilaahay wax ka doonayso wixiisa sii ilaahay waxbaynu ka doonaynaa soo maaha waynu baryaynaa horta amarkiisa qaado cibaadu ayuu kaa doonayaa adiguba aad wax ku helayso ood u baahan tahaye horta cibaadadiisa la kaalay oo amarkiisa qaado markaasaad codsigaaga soo qadimiyo aadaabtu waxa weeye wixii aad doonaysa markaasaad heli bal ka soo qaad tusaale nin baa madaxa adiguna shaqaalihiisaad ka mid taha markaa wuxuu ihi qofka caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaa sameeya
hawlaha qabta waxaan ugu abaalgudi doonaa waxa iyo waxa iyo waxa dadkii kale way qabteen mid baa isagoo halkiisii iska fadhiyay ninkii madaxda ku soo noqdo wuxuu leeyahay anigu wixii aad ii dirtay maan qabanin laakiin waxaan ka doonaya shardi baaba ku xidhnaaba waxay codsiga markaad arrimaha markaad fuliso amarada ayaad codsigaaga heli doontaa ninka madaxda wuxuu oranayaa wixii aan ku diray ma qabanine ma qabanaya ii dhib waxaan ka doonaya wuxuu istaahilaa marka in la xidho iyo in la garaaco iyo in la fogeeyaba walillaahi almathalu al'a tilmaantii khalqiga haddaad saa u fahamta ilaahay khaaliqaha ku abuuray maxaad u malaysa alla wuxuu wa idaa sa'alaka cibaadi anni fa inni qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyastajiibuu lii walyu'minuu bi lacallahum yarshuduun si aan ducadooda u aqbala dadka iyo codsiyadooda isticaanadooda iyo gargaarkooda iyo waxay iga doonayaan oo dhan si aan uga yeelo horta aniga hay aqbaleen hana i rumeeyeen inta i rumeeyaan horta hay aqbaleen in ilaahay diiday muxuu wax kaga doonaya subxaanahu wa tacaala waxa labaadoo nacbudu iyo nastaciinu jamac bay u taagan yihiin erayadu iyaaka acbudu iyaaka astaciinu ma aha laakiin waa jamac marka halkaana waxaa laga fahmayaa bay leeyihin culimadu sida shareecaddu bay noo dejisay in cibaadadu ay ku fiican tahay jamaca iyo wada jirka salaadii baa jamaca oo ku fadli badatay 720 darajo xajkii baan jamac la'aantiiba ansaxaynin jihaadkii baa jamaca iskaashigii wixii khayra ayaa watacaawanu cala albiri wattaqwa baa la leeyahay waxa kale oo alamru bilmacruuf wanahyu can lmunkar iyo wixii wanaagsan tacaawun iyo iskaashi marka mar walba wixii cibaado ah iyo khayr ah inay iskaashiga ku fiican yihiin kale socodkuna aanu fiicnayn oo shaydaankuba kaa eri karo xataa cilmiga barashadiisa imika dad halkaa u baxdo oo aad tidhaahda anigu life-kan ka dhagaysanaya xaafadayda iyo haddaad xalqadan soo fadhiisata ma isku baraka maaha life-ka kol islaantii baa mar koob shaaha ku keenaysa marna ilmihii yaraabaa ku jiiraya marna kii meheraddaa ku odhanaya ii saxeex dee ictikaafkana ma helaysa baasha nafyina waa daciifa marka cid la cibaadaysanaysa tartan iyo suxulduub bay ku jirtaan iyo cid ay eeganayso oo wuxuu arkayaa dadkii oo ka dheereeyay laakiin marka keligii uu noqdo shaydaanku maalinba in yar buu turkinaya ilaa uu wixii hayayba ka laababa nacbudu wanastaciin asraarta ku jirta ayaa ay ka mid tahay asiraad almustaqiim siraad wuxuu noqdaa bay leeyihin culimadu mid toosa iyo mid qalooc ku yaro jira labadaba laakiin arrintaa waxaa ka saaray almustaqiim marka jidka ilaahay loo maraa waa mid toosan وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه سورة الأنعام إلهي وحول جدك سواء جدك يجي توصنايا صامرة وإسلام لماذا مركز الإسلام كصفي عنه الرعضة واتسعونيسا إلى أد إلهي سور تاكتو سوى كارها لي قيامة إلى أد تنذى الباكي إذا كقش هدي أنو جدك سكي إلهي هنا مستقيم ما هو قلع مركلا جدك لسيف تيبي جدك مستقيم كهايو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تذكر مركا لاقى حق النعمة دي الآن تيدا وصدح قيبات قال نعمة إلهي كقبو السدي أو برواقيي أو وادتك إلهي الرمية كأمر قاتل الله ينقله هو سوا قال هذا الله بعدنا وحوي قار أنبضايا وكرنا عين نعمة دي وعيبة ولا الضالين هي قار اسكدا أنت النعمة هلانا لو بعد رضينا المغضوب عليهم صدح لا قيبات بيدتك الدنيا كنا ولا وقيبسين قال دينا الله وضع سوسي قيبسين كوا كفرك كوا هاللابيو يا كوا كلا لا بعرض مسلم كنا وضدك قالوا نعمي قرآن كيسجع فسره يا سيدي هلا بقى نص شيء دت كان إلهي ونعمي إنه عطسنا إن شد كذا إلهي إن مريوا كوي سورة دبا إلهي وكتل المامي سورة النساء إلهي وكعده سبحانه وتعالى ومن يدع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا عد إلهي الرسول كأضيع ذلك كالتلقاضت جيت إن نعمة إلهي يشو حكاحي قوم إن إلهي يضيعه وأنبياء نبيدي وإذا قال هذا كل شهيدي تذكي صالحين تاها وناق بدنا ويرهم تبضنا إلا للرفيق للراعة لو هلينا كواس أونا كسبوا لهاي وهمني سبحانه وتعالى الصراط المستقيم بركاو حكم ذي وحيابه إلهي وأضامها أقول نعمة يا بين هي معلم بدأ إلهي أي نبري إنه هنونيه الصراط المستقيم
culimadu waxay leeyihiin laba arrimood baa aayadan dambe ilaahay ku baraarujiyo ku diidi kara al-inaad wal jahl inaad iyo jahl anaadku waa wax keeni kara qofkii xaqii garanaya ayaa iska diinaya waa sida kuwa maqduubi calayh waa yahuudi iyagoo xaqa garanaya ayaa iska barbarbareen kitaabkiina gacmahooda ku bedeleen marka dad badan baa waxa dhacda iyagoo xaqa garanaya anaad daraadi inay u barbarbaraan waa wadaad xume ama ka loox tuurka ah ama uu kitaab tuuray la yiraahdo wuu garanaya xaqi laakiin wuu jirsiinaya siraad almustaqiim markaa wuxuu ku seegay anaad daraadi cara allu mutaystay marka almaqduubi calayh qaybna jahli baa haya wala daaliin oo jidkan toosan waxa weydaariyay wuu anbaday waxaan diin ahayn baabu diin ka dhiganayaaba sida ilaahay suuratul xadiid aakhirkeeda oo ku tilmaamay warahbaaniyatan ibtadacuuha ma katabnaaha calayhim illa ibtigaa ridwaanillaah suufinima iska dhambasheenoo nimankii diinta kiristanka haystay iyo wadaadadoodii waxaan diin ahayn bay diin ka dhigteen iyo bidca marka dariiqa wanaagsan jahligaasina wuu ku weydaarin karaa labadaba markaa waxaa laga baxayaa diintoo la barto lana dhaqan geliyo aayadda waxaa ka muuqanaya labada qolo waxa sii xumaan badan jidkan toosan kuwa u seegay canaa daraadii sidaa daraaddeed buu ilaahay soo horreysiiyey almaqduubi calayhim si kale haddaad ugu fiirsato almaqduubi calayhim waa ismi mafcuul addaaliina waa ismi faacil waa cilmigii naxwada ma jecli had iyo jeer naxwada inaan aada ugu dheeraano oo aynu u dhex gallo dee dadka caadigaabaa ka dhacaya oo waa arrin dalabada iyo dadka aqoon-yahanka ah ayuunbaa kula fahmi kara markaa intaad naxwada ka sheekaynayso waxaa laga yaabaa dadka caadiga inaanay kula qabsan saa daraaddeed macna ahaan unaynu ku keenno mooyaane inaynu faahfaahinteeda badinno waynu ka soo yaro gaabsan insha allahu tacaala almaqduubi calayhim waa macno sheegaya waa loo cadhooday kuwanna way hallaabeen waa faacil iyo mafcuul farqiga udhexeeya waxa weeyaan bay leeyihin culimadu ismigaa mafcuul waxa uu sheegayaa waa loo cadhooday ilaahay baa u cadhooday waxa kaloo u cadhooday cid kastoo ilaahay ka amar qaadanaysa oo addoomihiisa oo mu'miniinta oo awliyada ah ilaahay baa yuhuudi iyo gaal nacdalay innaguna waynu wada nacdalayna wixii ilaahay ka amar qaatoo dhan sidaa daraaddeed baa ayaa wasfigaa ismiga mafcuuli u yimi ciddii ilaahay ka amar qaadanaysa subxaana wa tacaala ilaahay baa nacdalay iyo ciddii ka amar qaadanaysaba marka labada wasfi macnahaasay sheegayaan marka cadhadii ilaahayna way ku dhacday oo ilaahay baa nacdalay waxaana sii nacdalay ciddii ilaahay aqbashay subxaana wa tacaala wuxuu ilaahay yidhi iyaguna odhanaya marka suuratu lfaatixa fadligeedu aada iyo aad u badan yahay waxyaabahaasoo dhan bay inoo sheegaysaa adaabta kale aynu ka arkaynaa waxa weeye siraad aladiina ancamta calayhim wax allo wixii khayra iyo wixii fadliya ilaahay baa la siiyaa oo loo nicmeeyaa waalfadlu ilayh wixii khayr oo dhan ilaahay baa loo nisbeeya ancamta wixii sharana dadkaa loo nisbeeyaa washaru laysa ilayk adaabta fiican weeye saa daraaddeed baa isnaadkaasaa u noqday aad bay u habboonta waana waajib xarakada qur-aanka in la ilaaliyo waxaa laga yaabaa xarako qura oo uu qofku bedelo xaraf iska daayo inay macnaha oo dhan bedesho sidaa daraaddeed bay waajib tahay qofka qur-aanka baranaya inuu mucallin yeesho carabkiisa loo saxo ka soo qaad haddaad tidhaahda ancamtu calayhim maxay noqonaysaa anaa u nicmeeyey dadka weeye adigaaba is-ilaah gareeyey ilaah baad iska dhigtay markaasoo ancamtu calayhim anigaa u nicmeeye weeye ka waran haddaad ta'da kasriso ama aada hoos dhigto ancamti calayhim markaana tu dhadig baabaad la hadlaysaaba ilaahay baabaad dhadigaysay subxaana wa tacaala waa laba ayaan darro waaweyn idan markaa waan iska akhriyaya un qur-aanka sax maaha laakiin qur-aanka kariimka ah waa in mucallim loo yeeshaayo la faa'iidaystaa aada iyo aad looga bartaa mucallimiinta waxaa kaloo nebi maxamed ka sugan calayhi salaatu wasalaam marka had iyo jeer dhammeeyo suuraddan waxaa odhan jiray maxay aamiin buu odhan jiray axaadiidta saxiixa bay ku sugan tahay bukhaari iyo muslim sida loo odhanayaana waxa weeye qaybta hore waa madulbedel qaybta dambena waa caaridu lisukuun aamiin waana la soo gaabin karaa aamiin laakiin tan aynu inagu akhrino maxaynu inagu akhrinaa aamiin way ku way maaragtay ku laxaadsanayaan taasi macnihiiba meesha uu ka baxaya walaa aamiina albayt alxaraam
وقصد بين مركان نقنيس القصد معنونا قصد إمك ما هالكنا واستجب إلهي ونأقبل بمركان آمين لا ذا وإله ونأقبل بعده هذا مين كشيدنا قصد بين نقنيس وح آخرين ما تشرده أن قراءة قاركود سيدا ورا شوكة لا أي هذه تشر وح آخرين مد البدل أيو ديريا مركو ديرين أنا مين كمشي ديو آمين وهي مركان هذه طريقة قراءة ورش الآخرين الذين آمنوا مركوا ديرين أنشد لهين قف كدونا يتاين وآخرين دت بتاعه قمت شيء ذا طبعا نوجد شيء ذاون آمين إلا الصحة وهم كمركو إمامكو آخرين ولا الضالين مركو رعاضو معين ورانا آمين كي بالقول تاجي شيء سيدا صحراء وحوي إلا يرعاضو آمين قيبت الدنبل تشيدو وقت قال أورانا يوم مركز صلاة إمامكو كلكو يرعاضو ولا الضالين ورميو أيال أورانا يا آمين من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح ساسو كشاغي قفك آمين تيسو أي وافق له آمين الملائكة ذنبي يرون دنبا لغا داف آمين ملائكة إيو آمين إمامكم هو يسوافقسين مركا آمين إمامكم كلكو بلابو أي ملائكتنا بلابيس أدوغنا مركا بلو هدي لكن إمامك آمين تيسيو آن لقارين أدوغ هراي وصي بلوضو والقدمنت هرادو صفريسة آمين تاوتي ملائكة ويسيغيس marka goormaynu inagu aamin dhahna waxay dadku oranayaan wala daaliinta inta aanu dhameynba ida qala al imam wala daalin markuu raado faqulu fa'dwa tartiib ma'a taqib marka kadib idinku waxa tidaahdaan aamin dhaha marka hala sugo wala daalin markuu dhameeyo aamin bilaaba la bilow arintaasna waa in aad muhiim ah wixii noo dhaw wada deg aaminti ba aaminti ka horeysa السلام عليكم تينا انت انو تيدن بورن وينو كعنay marka had iyo jeer masbuuqa tahay salaada imaamku tiisa uu dhameeyo adiga wax ku hadhayn goormaynu kacnaa markaana waxa la kaca had iyo jeer marka tii hore uu yiraahdo tii dambe aanu gaarin maxayna wada qadimay marka waxay u baahan tahay si ujuurtan iyo abaalmarintan loo helo in cibaadada waqtigeeda lagu beego intaas uu noogu joogi doona dariskani wahada ma aqulu wa astaghfirullah wallahu subhanahu wa ta'ala